بسم الله الرحمن الرحيم qodobkan waxaynu imanaynaa marka ugu horeysay switch iyo router aad isla heshid ama idhaahdo switch iyo computer aad isla heshid aad rabtid inaad configure gareysid maxaad u baahan tahay ugu horeyn initial configuration switchka marka loo baahan yahay in la sameeyo waa inaad haysataa marka koobaad in real topology baan ka hadlayo inaad laptop haysataa laptop aad haysatid ama computer aduu calaya xal aad haysatid waxaad u baahan tahay wax loo yaqaan console cable loo yaqaan console cable ayaa loo baahan yahay oo labadooda iskugu xidhaya maybe inaad weydiisid xadhigan internetka loo isticmaalo ee computerka iyo isku ka xidha switchka ma qaadi karaa maya kani waa ku gaara oo loogu talagalay for management in lagu maamulo kaliya console cable baad u baahnanaysa waxa sidoo aad u baahan tahay markaasi inaad computerka haysatid switchkina haysatid cable-kana isku xidhatid walaba waxaad u baahnanaysaa mar haddaad isla heshay cable-kii iyo computerkii iyo switchkii waxaad u baahnanaysaa softwares loo yaqaano terminal emulator programs loo yaqaano way badan yihiin laakiin kuwa ugu caansan aan ku tilmaamo waxa ugu caansan moba oo inta badan aad loo isticmaalo buti oo la isticmaalo security crt tera iyo hyper terminal ayaa inta ugu caansan qaar kalena way jiri karaan laakiin intaasi inta waxa weeyaan most usable anigu waxyaabaha aan isticmaalay xataa waxa kamid ah OS X terminalka wali ma aan isticmaalin laakiin topology-yada ugu badan ama daily activitieskayga waxaan kaga shaqeeyaa moba terminal waa kan iconkiisa halkan saaran buti haddaan halkan uga yeedho ka buti loo yaqaano isagana waa kan isaguna isna waa free download isna mostly used weeyaan waa hagaag ka kale loo yaqaano security crt isagana waa commonly used ayaanu isticmaalaa isagana kan kale ayuu noqonayaa security crt isaguna kanuu noqonayaa sidana kale ku soo baxaya marka isaguna waa kuwa aadka loo isticmaalo ayuu ku jiraa marka isagana aad baan u isticmaalaa programmeskaasi ayaad u baahan tahay markaasi inaad isticmaashid